Hoggaanka booliska Soomaaliya ayaa la filayaa inuu ku dhaco isbedel, waxaana wararku ay sheegayaan in xilkaasi la siinayo taliyaha hore ciidanka PSF General Asad Cismaan Diyaano ayaa noqday kuwa soo noqda dhowrkii isbuuc ee soo dhaafay una ahaa hadalhayntii ugu badneyd ee awood qaybsiga. Kursiga hadda waxaa ku fadhiya General Sulub oo si gaar ah isku xisaab yihiin Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Bare gudaha saami qaybsiga. Reerka uu Xamse ku matalo 4.5ka ayaa dhalinaya muddooyinkii la soo dhaafay iyadoo uu ra'iisul wasaaraha uu hal dhinac marsaday xilkiisa iyo xilal kale oo ka mid yihiin taliyaha booliska, safiirka Itoobiya, safiirka Imaaraadka, ergeyga xasilinta, hoggaanka dhowr hay-adood oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo mar walba lagu eedeeyo inuu qabo colaad gaar ah oo reerka Puntland-ka ah oo ayaa hadda la eegaya haddii uu dib u sixi karo saami qaybsiga, gaar ahaan haddii uu ra'iisul wasaarihii qancin waayey uu hadda siin karo taliyaha booliska Soomaaliya. Xasan Sheekh oo 2 jeer madaxweyne noqday wuxuu magacaabay 4 ra'iisul wasaare, hal mar ayuu qalankiisa qabtay qof reer Puntland ah waana Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, kaasoo isna la sheegay inay safaaradda Mareykanka soo jeedisay magacaabistiisa maadaama uu Xasan Sheekh xilligaasi aad u rabay inuu Mareykanka la shaqeeyo. Wararka ah inuu kursiga u dhawaanayo dhinaca Asad Diyaano waa kuwo saxsan, waxaase la sheegayaa in ra'iisul wasaare Xamse dagaal ba'an u galayo inuu Sulub sii joogo taliska booliska. xubno badan oo siyaasiyiin ah oo reer Puntland ah ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhowr jeer kala hadlay mowduucaasi. Ayuu Xasan Sheekh u sheegay in xaggiisa diyaar ay ka tahay, balse wuxuu farta ugu fiiqay dhinaca xafiiska ra'iisul wasaaraha. Kadibna wuxuu xubnahaasi u sheegay Xasan Sheekh inuu isagu soo xulayo ra'iisul wasaaraha. Xogihii u dambeeyay ee kursiga waxay sheegayaan in Xasan Sheekh iyo Xamse ka wada hadleen in kursiga la siiyo Asad Diyaano oo hoos loo dhigo colaadaha ay ku midaysan yihiin reer Puntland. Xamse waxaa la sheegayaa inuu hadda halkii hore ka soo dabcay oo uu ogol yahay in la bedelo Sulub si looga diyaar garoobo marxaladda labaad ee xukunka Xasan Sheekh oo hadda 2 sano jirsaday. Heshiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Xamse ayaa u fidinaya gogol nabadeed reer Puntland. Puntland ayaa inta badan lagu axantaa inay dowladda kaga go'day isla markaana ay tahay mid cadow ku ah dowladda Soomaaliya, isla markaana ku mucaarad ah Xasan Sheekh Maxamuud. Tan iyo markii la magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ballankii uu ka qaaday ra'iisul wasaare inuu ka dhigo madaxweynaha hadda Puntland haya Siciid Cabdullaahi Deni, balse uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Bare, halkaasna ay ka bilaabatay colaad hoose oo siyaasadeed. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa gabi ahaanba xiriirka u jaray dowladda federaalka Soomaaliya asigoo marnaba aan ka soo qayb galaynin kulamada la qabto ee ah shirka qaranka maamul goboleedyada iyo waliba dowladda federaalka Soomaaliya oo 2 jeer la qabtay. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in gabi ahaanba uusan ku qanacsaneen hab dhaqanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.